السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعيقو إستر كورلباح وحان فرطي يوتيوب عصب يوتيوب كي وحاوا إستر كورلباح وحان ربا إنا يسو دويسين أصحاب تيدا قرابة إهلك إنت مقالي مقالكي قرنيسو إنت عن قرنين با وهادك بعد أنسبرنينو وحان ربا إنا جانل كي يسو دويسان جانل كي وحاوا يشيغ يوتيوب كي إستر كورلباح وحان هاي قبر إذن ku cusub youtube-ka marka waxaan rabaa inay soo dhaweysaan wixii la jiri muxuu ahaa subscribe ma aheed ma aqaan wax ma garanay waa inay ii saartaan like-tana ii saartaan asxaabay aad soo dhaweysaan maadaama aan idinku cusubahay qofku markuu guri marti ku yahay oo intuu imaado xaafad kale uu ka imaado ama magaalo kale ka imaado guriga uu imaanayo waa la soo dhaweeyaa waa marti waa la soo dhaweeyaa martida la soo dhaweeyay idima sheegay weligeed wax dhaqan soo ahaan jirtay marka sidii martida loo soo dhaweyn jiray waa inaad youtube-kana igu soo dhaweysaan ilaa aniga youtube-ka waan ku cusubahay ma fahanteen marka walaalayaal boqolkiiba boqol waa in salaamahayaa wixii social media gaarka waan salaamahayaa kulligiin inta muslimiinta oo dhan baan salaamahayaa salaanka dambe aniga waxaan rabaa inaan maanta muuqaalkan aan soo galay in youtube-ka la igu soo dhaweeyo garabna la igu siiyo midda labaad aan ka hadlayaa waxay tahay on meeshan u soo galay waxa waaye arrin soo jireen oo dhaqanka Soomaalida ay dhaqan u tahay baan arkay culuma jirto caama jirto fanaaniin baa jirto aqilad jiro fanaan markii lagu leeyahay waa aftahan bulshada wax u gudbiyaa Soomaaliya hatta fanaanka arrintan fanaaniinta hatta weligood soo heesi jiray haday fanaaniinta hore tahay haday fanaaniinta dambe tahay arrintaas wax ka heesay ama ka heesaayo ama maartay arrintaas ka hadlaayo ama abwaan ka heesaayo weligay ma arkin waxaana u arkin oonan weligayna maqal baa waxay tahan maleey hadaan fikray aniga horta fikirkayga hadaan fikray naag baan ahay fikirneen kuma nin miihi laakiin san naag baan ahay hadaan fikray waxa maleeyay naag abwaanada ama aftahaneed oo heesaha yani abwaan oo miraha soo tiriso ama maartay ay wax ka soo maxdaan badana ma jirta umaleyn way yar tahay nimanka waxa abwaan fanaaniinta heesaha u dhibi waa niman abwaaniintana badana niman bay u badan yihiin marka abwaaniintu waxaan u maleynaa inay dhankooda ka tahay hiilo nimanka ay u hiilinayaan waxay arrintaas uga sameyn waayeen arrintaas hadaad rabto inaad maqashana waa waxaan maanta social media u soo fadhiistay waxa waaye gabar kasta way ku dhacdaa oo Soomaali ah ama maamo kasta oo Soomaali ah ku dhacdaa culumadana kama hadasho ragga ayaana sameeyo oo ku sameeyo bilcaanta ma fahantay marka haddii aad u sheegtana waxaa lagaaga dhigayaa qeyl waxaa lagaaga dhigayaa ninku wuu ku jecel yahay wuxuu waxa kugu suubinayo ninku wuu ku jecel yahay arrintaas oo ah nimanka naagaha ilmaha ka reebanayo ninkii waa isjeceshiin wuu ku qabaa waa wada joogtiin guriga wada joogtiin nin iyo naagtiisa tihiin inta uu ku qabo wuu ku jecel yahay ilmihii buu kula haystaa bilaadan baatiina waa la isku dhacay oo maaragtay khilaafa meeshii imaaday nin iyo naag isqabo oo dhan way kala tagaan waa la kala tagi waa la isku imaani waana la kala tagi calafka labada qof ilaahay baa isku keenay markuu calafka oo la kala tagayaan calafka dhamaaday ninkii waa isguursateen shal idinka israbteen asaga wuu ku jeclaa adigoo keligaaga socoto buu ku guursaday oo adiga waxba aan wadan oo keligaaga isku imaateen ninkii waa isguursateen guri baad wada degteen ilmaad dhashay ilmihii ilaahay baa idin siiyay labadiina waad wada dhasheen waxaana uga sii xaq leh oo dhalay oo zaid u dhalay haddii ilaahay laga cabsado oo xanuun u maray oo walac u maray oo fool u maray waa naagta maamada dhashay haddii koris ay noqotona waxa dhib u maraayo oo ilmaha dayactiraayo oo laga rabo inay maaragtay dayactirto oo maaragtay isluubtooda ay ilaaliso oo wax barto oo dhaqanka fiican ay barto oo dhaqanka toosan ay barto waa maamada aabaha badana uu shaqeeyaa marna safar buu ku maqan yahay marna magaaladiisa wareegaya suuq habeenku imaanaya inta badan ilmaha kama warqabi karo maamada lacala haday shaqeysa hataa hooyada ay hataa shaqeysa maalintii subaxii inta hore gelinka hore qasab ilaa 5 saac 4 saac guriga joogta casarkiina ninka way ka hor imaataa habeenkiina badana ayada la joogto badana safar ma aado aabaha laakiin badana safar u aadaa marka hooyadii ilmaha u roonayd oo u fiicnayd shalayna ilaahay labadooda wada siiyay يا ما أنت إنه ده مركي كلا تجان أو علفك أو دماده أو در الله علفك إلهي أكل جيو إنه ده
maxay ahaday naa ilmahayga ii dhig shalay baadoo intaan insaan ahaan ku guursaday maantana ilmahayga ii dhig ani adiga waan kala tagnay walaalo macaanow marka horeba ifur markaa tiraadid walaalo waan heshiin weynay dhibkaasaad igu haysaa tolkiisa u sheegato mar lagu celiyo lagu dhaho reerkaaga u samir waad samirta cidda lagugu celiyey wixii way sii socdaan mar labaadkiiba haddana tol idin dhex galay haddana waa lagugu celiyey mar saddexaadkii ninkii wixii uu dhaafi waayey hadduu dhaafi waayey waxaan huraynin in la kala tago haddii la kala tagay awlaadii shalay gurigan yaad joogtay ilaahay baana wada siiyey anaana dhaloo dhib ku maray ninka ragga maxaa u diiday inuu dhaho naagtan waan kala tagnay laakiin walaalay macaani ilmihii noo wadahay anna aan kugu korsado diinta islaamka sidii sheegaysa ilmihiisa wuxuu u heli karan uusan ka hagranin maamadin ilmaha u hayso asagana uu ku ogaaday ilan dadkan awlaad baa ka dhexaysa weligoodna ma kala go-ayaan ilaahay baa ilmihii wada siiyey ma dhacayso haddaad ninka intuu ilmihii kaa reebto ama ilmahayga iidhi ku dhaho ama badanaa dhaqanka soomaalida ay yaqaanaan baa waxay tahayba aniga dhaqanka gaalada ma taqaano ma aqaano waxa baray soomaalida waxay ku dhahayaan ninka markaad kala tegaysidba ilmahayga iyo madaxaaga isku xiran aniga 2 mar bay soo qabsatay markii labaad waad hadda ay haystaba madaxaaga iyo ilmahayga baa isku xiran ninkii ma rabtid oo calafkiini baa dhamaaday shalay waad rabtay laakiin maanta ma rabtid ilmihii laakiin mar kastaba adaa dhalo waa waxaad u rafaadood fool umartood rafaad umartay maanta ninka haddaa kala tagtaan naag kale u helayaa laakiin ilmahaaga maanta haddaad turto hooyo kale ma helayaan ma fahantay sababta marka keentay inay ninka u dhahaan madaxaaga iyo ilmahayga isku xiran ilmaha ilan asaga sharci u gooyey ma jirto sharci diinta islaamka asaga keligiis uma goynin naagta hadday ilmaha haysatana labadooda ay u wada haynaysaa marka sababta nin maba dayactiri karo ilmo oo maba hayn karo maanta lagumaba aaminaye hadduu naag guursadana naagta uu geynayo madaxa ka kawina taa waa soomaali caadadeeda waa la ogyahay maxaan aniga hadda kula hadlaya nin kale ilmo uu soo naag ka soo qaatay naagtii dhashay oo 20 jir hadduu ii keenay ma korina runbaa fiican haddana asaga jecelan asaga intaan jecelan asaga u qabo darteed aan u dhaho waan korinayaana jaceylku waa xiise uu dhamaanay loo bari aniga ma haynay haddana waxa laga yaabaa asaga ka cabsanay inaan haayo laakiin aanan niyadeyda ku faraxsanay marka aniga waxaan dhihi lahaa ragga ilmaha naagaha ka qaadanayo oo dhahayo madaxayga iyo ilmaha isku xiran arrintaas weli wax ka hadashay fanaan ka heesay weligay ma arkin abwaan ka hadlay ma arkin oo miro ka soo tiriyay ma arkin culumo ka hadasho arrintaa waa qalad tiri ma arkin waa yeelo ka hadlay ma arkin markii aad dacwooto oo tiraahdo intaad culumo u tagto ama maxkamad tagto ama islaan u tagto ninkan saas uu leeyahayna af Soomaali waxa lagaaga bilaabay ninka aduu ku jecel yahay ilmihiisa hadduu isii ku yirsi haddaad ilmihiis ku dhajisana ninkii baad rabtaa oo ilmihii haddaan isku dhajiyo ninkii maxaa i rabsiiyey ilmaha anaa dhalay ilmaha anigaa dhalay ninkan sharan kulanay ilmaha anaa dhalay isagana wuu dhalay waa nogsoon yahay laakiin ilmahayga ninka ma rabtid inaan u tuuro ninkii ilmahayga iima sinno ninka habar baa dhashay laakiin aniga ilmahayga anaa dhalay marka sababtaasaan fahmi waayay waxaan muuqaalka badanaa ummad ka hadlaysana ma arkin waan jeclaan lahaa inuu fanaan ka heeso oo culummada ay ka hadasho oo nimanka runta la tusiyo oo ilmaha naagta ay la korsadaan haddee maaragtay ii sheegay hadduu dhaho hadday ilmihii qaatona biil kumaba siinaayba 10 shilin kuma siinaay oo sharcigu iga siiyo haddii maaragtay ii sheegay ay kaleeto ii dhigtana wayba ii dhigto anaa iskale inay ii dhigto inaan biil ku siin labadaa midta soo gasho hadduu dhaho waa qalad laakiin haddii mar hore wixii laga doodo oo fanaaniin ay ka heesto oo fanaaniinta badanaa abwaaninka waa nimanka inay ilaahay ka cabsadaan oo ninnimo ay iskugu heliyaan ma ninkaad maanta arrinta u sheegato wuxuu ku leeyahay naagta ninka ilmihiisa dee asaa dhalay u dhig waa rune haddii kale reerkaaga dhaqoo ninka ku noqo waa xoog taas taa maanta baryo la isku qabaayo ama rabitaan la isku qabaayo meesha ma yaallo maaragtay ii sheegay meesha waxaa taallo aan qasab kugu qabo qasabna la iskuma qabi karo qofka bini'aadanka markuu ku rabo umbaad qabi kartaa hadduusi ku rabin ma qabi kartid qofka bini'aadanka horta waa inuu ku rabo horta marka ugu horreysa waa in la israbo shalay markaan ku raacayo ilmo kuma dhalin anaa ku raba ku daba orday laakiin maanta dabeecaddeena heshiin weysay haddaan kala harnay maaha inaa ilmaha madaxoodaan kuugu samra sababta kumaba rabiye qalbigaygaba kumaba jirtidi qofka bini'aadanka horta qalbigu wax ka rabaa qalbiga haddaana ninkan ba aana rabin maba rabi aniga haddaan u baahnayn maba u baahniba marka aniga waad nacdee ilmahaygana nac meesha ma taalo ilmaha waan dhalay ayagana igama maarmaan horta ma lis weydiiyey ninka ilmihiisa wuu qaatay ilmaha inay aniga maarmaan ninka ma lis weydiiyey ninkii waanba kala tagnay ilmihii wuuba iga qaatayba kaba soo qaatay ilmihii anaa dhalay ilmaha aniga intaan aniga rabo in la eg 3 jibaarkeed bay iyaga i rabaan ooyo kale haddii loo geeyey ma rabaan qof kale haddii loo geeyo kuma faraxsano laakiin aniga way igu faraxsan yihiin anaa dhalay waa ilmahayga aniga way igu faraxsan yihiin marka waxaan jeclaan lahaa in ragga
waxaas samaynaya hadday imaqlahayaan nimanka qaarkood way daawan karaan social media dad badan baa daawada ku xiran marka waxaan leeyahay nimanka waxaas ku dhaqmahay inay iska dhaafaan bataatanba dhaqankaas waa dhaqan xun inay ka waantoobaan ilmahan ayagaa dhalay qofka bini'aadankaana ceeb bay kugu tahay inaad ilmo kusoo jiidato isagoon ku rabin ama qalbigiisa ku baahna inaad dhahdo aniga ilmahaygaan rabaa aniga ilmahayga edhig haddii kaleeto maku furaay madaxaaga ilmahayga oo isku xiran yihin qofkan hadduu asaga ku nacay waa ku nacay ilmahaaga inaad korsato oo dhinac ka korsato meel kastoo geysa aad ogaato ilmihii aad la socoto ilmahaaga aad korsato u tagto nin baa tahay meel walbaa tegi kartaa ma fahantay marka aniga waxaan dhihi lahaa qofkan qofkii dhalay ma ka habaabayo haddii adiga aan soo korin anaga cunuga 20 sano hadduu gaaro qasab masti waay hooy aabahay aawi kuley tu ku nool aniga aabahay waan rabaa magaciis aniga hadda wiil baan dhalay wiilkayga aabiis mar horan kala tagnay ninka hadda aan kala tagayna hadda oo ilmaha aan u dhalay wiilka horeeyaa jiro aniga 2 nin baan soo maray ninkaas wiilka aan u dhalay laabtana waana haystaa hadda waa nin weyn 16 sano 15 sano wuu jiraa wiilkayga maalinkii iskuul la geeyay asagoo 5 sano jiro iskuulaan geeyay ilaa maalinka maanta oo 16 sano uu jiro ilaa abti now aabiisu ku abtirsadaa anaa soo koriyay intaa la soo ekeeyey haddana saasay tahayna weligiisii aliis ninka anay qabo aan ilmaha u dhalan wada joognay kumaba abtirsaninba aabihiisii 10 shilin weligiis aan igu siinin saan u kala qaadanay aniga isaga wiil iyo gabar bay ahayna gabadhu qaatay duqda qaatay hooyadiis isagana ana wiilkan qaatay ma ilaa hadda ma soo dabadabaysan saasay tahayna wuxuu leeyahay aniga aabahay yaa dhalay markaa iska waantoobaan dhaqanka ilmaha naagaha nimanka ay ka qaadanayaan waxaas kale waa ceeb ma fiicno abwaaniinta hadday marka hore qalad suubin jireen oo ay samayn jireen oo nimanka loo hiilinayeen dhaqanka nimankan ay isku hiilinayaan ay iska dhaafaan ma fiicno sababtoo gabar way kula dhalatay gabar waad dhalaysaa hooyadaa waay inta adiga aad naag gabar islaameed ku suubinaysa adigana kuwa adiga kula dhashaa lagu suubini ilaan adiga naag kama maarantid bataad qabta keliya naag kuma aha marka saasaan leeyahay maca salaamo dadka waan kasii baxay hadda waxaan leeyahay walaalayaalow hadda warkaasi soo dhaweeyay anigana intaan aqaana waan soo dhaweyni dee sakabsaraabtii waxa la sheegaya dana ii saara deena sii faafiya oo ragga waxaan rabaa dhan adduunka inay maqlaan waxaana ku hadlaayo waa inay naagaha cabiidka ka daayaan inaa waxa ay ku hayaan waa inay ka daayaan waxaan aniga aan soo arkay wax yar ma ahan bilcaanta aniga intaan bilcaan arkay oo cabaadayso oo ilmahoodii meel kale ay ku nool yihiin ilmihiina ay silcaayaan ayagana ay naagii meel kale ku silcaayaan lama koobi karo 2 3 4 5 lama mararka qaarkood waxaa ku qaban nin baa la guursan ilmaha dhalin nin baa hadduu saan yahay ilmaha ha dhalin intay meelaha ku silci lahaayeen dhabarkaaga ku wado yaa marka waxaa waaye gabdhaha la silcinayo oo ilmaha laga reebanayo yaa ha la iska dhaafo oo ma aragtay ilmahayga eedig la leeyahay ha la iska dhaafo ilmahana hooyadood way u baahan yihiin ilmaha markay hooyadood haystaan badan aabood ma tamaan laakiin ilmaha markay aabood haystaan wax kasta la siiyo wax un baa ka dhiman haddii wax kasta la siiyo haddii wax kasta afka subak haddii looga shubo in cunugaas wax un baa ka si'e wax un baa ka dhiman cunugaas caadi inuu noqdo habarteeda ka tahay oo sida ilmaha kale uu koro habarteeda ka tahay marka aniga cunuga haddii hooyadiis ay haysato aabihiis iyo hooyadiis inay kala tageen xataa ma tabaayo cunugaas aaba inuu qabo wuu tabi laakiin cunugaas sagab ilmaha ugu aqli badanba daacadii dadku waxay dhahaan cunuga aabihiis hooyadiis wada haysta aqli badan waa been kaama yacaab laga badi laakiin cunuga hooyadiis ay haysato aabihiisna uusan haysanin saasay tahayna wuxuu tabaaya inuu aabihiis ka maqan saasay tahayna hooyadiis hadday haysato cunug aqli badan buu noqon laakiin cunuga hooyadiis aan haysanin aabahana inta badan safar iyo balaayo uu ka aadaa cunugaas asaga sidiisaba maafishuwa cunugu waa maqan yahay markastaba si unbuu maqan yahay aniga asxaabay waa fikirkayga waana soo arkay anaa haystay cunugayga maanta meel lama la-asan asaaba ugu aqli badan dadka runba fiican aabiisna weligiis maba tabin inkastoo aabiisna uu ogyahay uu asaga markastoo hadda aado dhowr jeer hadda uu raadsadayba aabiisna cidna ama ka celin karin uu ogyahay inuu aabiis dhal inuu joogo laakiin haddii maanta hooyo iyo ayeeyo ama islaamo kale ay soo korin lahayd saan hadda uu yahay ma ahaan lahayn maca salaama goodbye